waxa muhiimka waxay yihiin waxa la isla og yahay in la isku celceliyo macno badan ma sameynayaan laakiin in la fahmo inta wadadii la soo maray iyo wixii la sheegay oo dhan annagu haddii xukun jacayl tahay iyo haddii tala ku far adeegi tahay iyo madaxweynahana uu ka hadlayo dhowr mar horena waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geedda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayn wixii shalay annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka Soomaaliyeed codka dadka Soomaaliyeed ilaalinta dadka Soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dawladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka in la isu badbedelaan rabnaa siyaasaddu inay midba tala badan ku jirto tahaan rabnaa nidaam federalism oo mid qarankan uu naga dhaxeeyo midka kalena shu'uuntayna hoose aan u kala dhaqanaan rabnaa dadka hadalladii ay jiraahdeen ayaa annagu aan ku daba joognay aayado quraana maaha xeerarka iyo nidaamka dadku ay degsadeen ay ku heshiiyeen laakiin waa ognahay xeer weligan uu noo deganaa jiray haddii uu shaqayn waayo ama dhibaato ka timaado intii degsatay intii isku timaaday tira xeerkan waana anfici waaye dhibkaan uu keenay mushkiladii aan rabnay inuu xallin waaye warsaan hal la yeero laakiin waa tuuraynaa bedelna uma hayno laakiin asiga magaciisa intaan sheegnaan annaguna sidaan rabnana waa ka yeelinaa waxyaabaha muxuu ahay dhibaatadu ay ka jirto waaye horeyaana loogu soo arkay dawladdii dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo dareenka dadka ilaalin weyday ayadoo midaan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magaciisa badan ay duntay ay shaqay weyday marka waaye aragnimaan u leenahay da'deedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shalay aan ku qaladnay mar kale inaan ku qaldanno ma rabno dawladdeenna waa dawladdeenni haddaanan dawladnimo rabin oon qaranku inuu dhismo aanan rabin dawladdan maanta waxay samaynaysay walax kasii dhib badan aan samayn lahayn annaan samayn karnay weliba laakiin waxaan u samayn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo annagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen iisoo qaba shaqadan bes waa mahadsan tahay inta iska dhigay caliga iisoo qabanaya maalinta dambena haddiina la yiri inaan u hogaansano qadan waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dawladnimada Soomaaliyeed la soo dhisay carta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay Somaliland naga maqan midnimadeena ciriiri ku jirta Somaliland naga maqan war walaalihii hal la jiriyo oo hal la waxeeyo madaxweyne Shariif waqtigu madaxweynahayna waa ogtihiin juhdiga uu ku bixiyay aniga intaan taladahay ogtiin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka Soomaaliyeed aan rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen annagoo Somaliland sida uga dhutinayna maanta marka kuwa kale in la sii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafadii aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dawlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federalismka maanta nidaamkii federalismka waa noo shaqeylaa waa anfici laayay co-federalism yaan ka wardoonaynaa waa sii durkeena centralized government dawlad dhexe oo xoog loogu midaysan yahay ahayd wixii dhacay iyo dhibkii dhacay ee kala aamin bixi dhacay wixii inta laga soo kabanay waxa la nidaam federalism oo danahana gaargaarka ah aan kala leenahay kala maamulanayno waxa naga dhaxeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan samaysano tiya socotay tiya dadka qaarkiis maanta waxa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ay baleeyin maya gadaalan u sii durkaynaayo co-federalism wax la yiraahdo confederation wax la yiraahdo aadayna federalism ku shaqay waay maxaa ku soo xigo goon isu taagan aadayna ku soo xigta maalinta dambana hal jaran ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya confederalism ama confederation inay aadaan hal jaranjara u dhiman hasha jaranjaro u dhiman waxa waa goon istaag waay wax ka sii dambeeyo oo awood dawladnimo baahsan ah confederalism ka sii dambeeyo malaha federalismkii oo la sii dhimayo la sii kala dhimayo la sii kala waxeeyay wana waay confederalismka marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta maro haynaa weli ka qabashaan leenahay dadku waa dad Soomaaliyeed shalayba waa la isku soo noqday dalkan ayadoo colaadi ka jirto la kala qaybsan yahay lees dilayo dadaa inta safray imaamadooda xirtay oo baxay
yaa dadkii ay la dirirsanaayeen meelihii ay deganaayeen iyo degaanadooda ugu tagay yir walaalayaal aan heshiino meeshaasi ka soo bilaaba taas la is aqbalay maanta macquul ma aha beesha caalamka waxaan leenahay waa nasiib darro in meesha iyadoo lagu kala maqan yahay meeshii ay dowladda ay kala hadli lahaayeen oo dadka kale ay kala hadli lahaayeen markuu madaxweyne shariif oo kismaayo u socday kismaayo muxuu ahaa dee riwaayad lasoo daawanaya meesha ma ahayn oolin waxaa ka mid ahayd ajendaha ugu weyn oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kaloo badan oo soomaali muhiim u socdeen in hoggaanka iyo maamulka iyo institutionka jubbaland jiro la dhagaysto dareenka ay qabaan wixii laga daawey kara wixii kana oo laisku soo celiyo xayndaabkii dowladnimada lagu soo wada noqdo laakiin marna muraadka ma ahayn in muxuu ahaaye la sii waxeeyey in lasii kala taga la sii waxeey boogihii hore intii la dhayi lahaay in kuwiina la danqiyo kuwo cusubna daqarro cusubna dadka la gaarsiiyo hadda la sii waxeeyo waa nasiib darro maanta waxay taagan tahay marka maxaa danno ah waxyaabihii dowladdu ay ballan qaaday maxaa ka socday dowladdu intay ka baxday hoggaanka ugu sarreeyo qoladan beesha caalamka maanta ay la shireen ay u tageen magaalada londonaa lagu shiray wax la yiraahdo comprehensive security arrangement lagu soo heshiiyey amniga dalkan qaabeyntiisa wax la yiraahdo lagu soo heshiiyey dad badanaa diidanaay dad badanay la xumeed dad badanay la qaab darneed dad badanaa qabay sidaan si ka fiican oo wax loo qaabeyn karaa jiray laakiin iyadii xataa aawe tii markii la sameeyaan dhihi lahayn war waxaanaa ka dhiman ha lagu daro ama meeshaana waxoogaa yar ay ka waxaysan tahay saan ha laga yeelo iyadii lama hayo aawe dowladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yidhaaha ay samaysay tubta siyaasadda loo dhan yaha ka mid ahayd war siyaasadda yaa u dhan hogaamiyaasha ama madaxda dowladda iyo shaqaalaha xafiisyadoo ka shaqeeya maa siyaasadda u dhan yah meelaa maamul goboleed doorasho laga gala hadii wasiir ha la geeyo xaggaa mid kale laga rabaa la yidhaha nin wasiira iyadana ha laga soo dhiso maxaanku idhahdaa xaggaa guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu hala magacaabay ha loo diro siyaasadda aniga ma u arkay inay sidaas tahay dadkaasi sharaf ay leeyihiin wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh wiilasha xafiisyada ka shaqeeya dad sharaf leh laakiin waxa waaye aaliyad ama tuul meeshii saxdeen aan loo adeegsanaynin waaye soomaalidii hore maxay ku maamaahi jirtay mudac iyo maliindo midba meel ku roon mudacuna waxbuu mudaa dadkii baadiya joogi jiraa yaqaan ahaanta marka la tolayo mudaa maliindadana waxbay goysaa mindi waay mudacu wax kuuma goyn karo maliindadana meelo qaarkood wax kuuma mudi karto midba tuul walba meesha uu leeyahay inuu aadaa la rabaa oo loo adeegsado siyaasadda loo dhan yahay dadaa u idman oo dowladda dhexdeedana dadaa u idman dowladda bannaankeedana dadaa u idman dowlad goboleedyaa jiro xisbiyaa jiro bulsho rayadaa jirto ururo bulshaa jiro dad badanaa jiroon dowladda ka tirsaneed dowladdu waa dadkaas dadka ajandaha siyaasiga ee dhabtaa inay ka gadda la rabo oo siday u rabta haddii si ka duwan loo sheega inay qaadato ay tahay tubta siyaasadda loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay shirkaasna waa u marqaati wixii kismaayo ka dhacay waa u marqaati fariinta puntland ka imaanaysa waa u marqaati galmudug waxaa ka socda waa u marqaati waa midda aan sheegayno leenahay wasiiraa maamul looga dhigaa madaxweyne looga dhigayaa iyo maxaanku ihahdaye guddiyaa loo magacaabayaa xafiisyada wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya loo dirayaa guddi ka ayo war xaggee wanaag iyo wadajir iyo wax xooganoon wada leennahay oon wada ilaashano oon wada dhowrno xaggee ku imaanayaan war dalka dadku ka dhexeeya siyaasaddu dadkay ka dhexaysaa dadkaani lama celi karo lamana hor istaagi karo loomana diidi karo inaa u diidina dhib unbaad sii kordhinay waxaan magac xumo iyo karaamo darro aan ahayn kama qaadayo qofka saas yeelo shalay shirka meeshaan ka dhacay khudbooyinkii laga jeediy iyo kuwa maanta laga jeediy ma raba inaan commenti gareeyo waa dhegaysanaysaan konseenka xataa dadkaas beesha caalamka oo naga baxsan annaga ay hoggaanka ka muujiyeen dowladnimada ma aha muxuu ahaaye qof iyo laba iyo saddex maaha wax la yidhaahdo hoggaan wax walba siyaasadda loo dhanyahay hoggaanay rabtaa amnigu hoggaanuu raba waxaa soo haray dastuurka waxaan ugu maqaalaha in la yidhi bisha juun sanadka dambe dastuurka wuu dhammaanaya waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheegno wax kasta oo qabsoomayaahay weel ay ku qabsoomaanay leeyihin dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaa wixii in laysla ogolaadaa la rabaa
dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhaxeeya waay oo dowladda awooddeeda tilmaamayo oo shacabka awooddiisa tilmaamayo oo dowladda awooddeeda xadidayo oo shacabka awooddiisa xadidayo oo kala waxaynaya waay xamar dhexdiisa iyo maxaan ku ihahdaye meelaha aan joogno miyaa keligan intaan isu sheegno miyaan leenahay dastuurka waa kana waa qabnaa maya ma dhacayso war dalkan cadowuu leeyahay niman shabaab la yidhaahdaa dowladnimada cadow u ah dowladnimada cadow kale yaan loo abuurin kala aaminbax yaan loo abuurin safka shabaab lagula jira yaan la kala jijibinin awoodda aan leenahay dowlad dhisidda oon kusoo meel intaan yaanay maanta si kala dhantaalin kuwa badanaanba inaan kusoo kordhino usoo zaa'idin u baahannahay cudurdaaray heli lahayd maamul goboleedyada maamulada laysku haysta maanta dhismahooda markii la joogo layskuma qabsanin maamulada markii la dhisayay haddii laysku qabsadana intaan baxnay oon dhex fadhiisanay oon habeenno ku dhaxnaan dadka soo barinay intaan dhegaysanay midna aflagaadeeyo midna ammaano mid naga gar qaato mid naga gar helo oon u garaawno intaba ayagoo laan dadka intaan soo dhegaysanay yaa maalinta dambe waxay wada leeyihin inay samaystaanaan keen ayadoo dowladda soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya carto gey maxaan ku idhahdaa imbagathi gey eldoret gey addis ababa u celi la leeyahay yaa inta lasoo qaadayaa la keenay dalkaa gudihiisaas siyaasadda soomaaliya dalkan go-aan looga gaaray dastuurka maanta jooga lagu sameeyey dowladdii ugu horreysay gudaha lagu doortay madaxweyne lagu doortay ku meelgaarnimadii lagu waxay dowladda waxaan leenahay hadda ka horna waa mar kalaan cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dambayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi oo sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meeshii shalay laga yimiday yaan loo noqonin taariikhda waxayna bare nin kastoo soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama cadow ha ahaada ama xabiib ha ahaadee u tegaya magan galay nin kaloo soomaali ah ayuu ka carariyay xataa haddii dadkeena maanta diaasbarada qurba joogtaa shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayan qaxin dad soomaaliyeed kaloo walaalahooda ay ku af iyo ku diin iyo ku dadnimo yihiin ay ka qaxayeen qof hadduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dowladdaa u dirtay mas-uuliyiinta maanta joogtaa u dirtay ayagaa ka celi karay hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas-uulka ahaya sababtu ahaa qofkaas inuu cararo ama ajnabi magan galo ama siyaasadda dibadda ha la geeyo uu yiraahdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo waxaan rabaa qodobadaasi iyo waxyaabaha waxa waxaasoo dhan marka hal waxbaa isku fuuqsanayo hal wax oo haddii fahamkiisa laysku raaco la meelmariyo isku fuuqsanayaa jira waa maxay jawiga ama saaxadda siyaasadda in la furo la waasiciyo la ballaariyo siyaasadda in laga markaan siyaasaddu dadku ay ka hadlaan waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan annaga qol inta isla galna aan ka hadalno maalan aniga xisbigan guddoomiye ka ahay madaxweyne shariif xisbiga muxuu ahay hogaamiye u yahay xisbiye kaloo fara badan oo maanta madallada ku midoobaa joogo kuwa aan madalladan ku jirinaa jiro xisbiyada gaargaarka aan u leenahay annaga iyo inta nala xisbigaasi xubnaha ka ah isla leh fikirkooda waaye ma aha fikir soomaali oo dhan ma aha inta isku fikir noqotaa xisbiga isla yeelata xisbiyadiyaa inta isku yimid haddana maxaa isaga fikirnahay waxaan ku kala duwannahay meel dhodhoga kow lama saddex makaba haa qaara haddana inta isku yimid isla gartay oo hadda madalladan samaystay kuwa kalaa ka maqan oo ama aanan waxa annagu aan isugu nimiday aan nala qabin amaba aan waxayn waana ogolnahay raalli aan ka nahay ra'yigaana in laga duwanaado ra'yi kale la ag dhigto mid ka qurxan la keeno annaguna kuwii ra'yiga qurxan mar walba qaato ama keeno aan noqono inaan darona marka waxaan rabnaa afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsoonitu haddaanay kalsooni imaanin jubbalandna la arki maayo puntlandna la arki maayo galmudugna waxaa ka soo baxaya wax fiican ma noqonayaan kuwa kaloo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuunu cadow kuu arag hadduu kuu arka xataa waa inuu kula hadli karo wax kuu sheegi karo ou qabo meel uu wax kuugu sheegi karo iyo si uu wax kuugu sheegi karo inay jiraan aad iyo aadaa umahadsantihiin annagu waxaan rabnaa soomaaliya la wada leeyahay dowladnimo la wada leeyahay talo la wada leeyahay taasaan daawada ka dhex aragnaa taasaan rabnaana in la helo haddii alla yiraa
iyadaasaanan u taagana haddii aan la yidhaha maalmaha soo socda iyo usbuucyada soo socda bilaha soo socdana mar walba iyadaasaan u taagnaa doonaa tilaabo ka turjumaysaanan qaadi doonaa dadka mar kale kelmaddan waa isticmaalay waa ku celinayaa dowladda federaalka ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ee dowladda ay u tahay maragga ha ka dayso dhaqaale sida madaxweynuhu uu tilmaamay u yaallo kalsooni sida aan wada tilmaannay u taalo dhaqaalaha horumaray iyo maxaanku idhaahdaa muxuu ahay reformaa la sameeyey jawigii lagu samey lahay ma taalo aad iyo aad aa umahadsantihiin waxaan leenahay waxaa waaya dadka mar walba siyaasaddu waxay ka turjuntaa rabitaanka iyo masaalixda dadka siyaasadda ha la furfuro dadkana ha loo turo aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah su-aashan qaba waxay tahay madaxweyne xashan farmaajoada ka horreeyey saa daraaddeed interfaganational political sidaan oo kale si adag dowladda uma dhalin weliba madaxweyne kala kaashanaysaa maxaad diida dowladdana fursad siisaan shalayna su-aashaas waa la i weydiiyey annaga horta intaan joognay waana la dhaliili jiray laakiin dhaliisha ma diidi jirin hadda waxaa dhaliisha inay weyn tahay loo arkaayo waxay tahay nidaamkiyaa la dhaliilayaa shaksi ma aha madaxweyne xasan sheekh madaxweyne shariif madaxweyne farmaajo madaxweyne cali ma aha nidaamka dowladnimada waa horta waxaa laga hadlay in la ogaadaa la rabaa oon la shaksiyadaynin wax annagu waxaan ka hadalnay waa nidaamka dowladnimada aniga waa lay dhaliili jiray on the record waa taallaa mas-uuliyiin waaweyn oo dalka xilal ka soo qabto ra-iisul wasaareyaal soo noqday oo wasiirra soo noqdayaa joogay madaxweynaha maantaa joogo wixii uu dowladdii aniga aan madaxweynaha ka ahay ka sheegi jirayna on the record waa taallaa marka laydama dhaliili jirin maahana farqiga waxa waaye dhaliisha maanaan diidi jirin dhaliishaa la diidayaa maanta meeshaan ku kala duwannahay intaas waay waxaan rabaa inaan ku daro dowladdu maa fursad siisaan dowladda fursadaan basiina ma annaga haysano dowladda inay toostaan rabnaa dowladda sida madaxweyne shariif hadda uu ka dhawaajiyey meel intaan fadhiisano gacmaha issaarano maan dhowranaa intay wax walba naga hallaabayaan waxa aan leenahay war yaanay wax naga hallaabin waayo waxa naga hallaabeen ma ahan yaanay wax naga hallaabin marka dowladda fursadaan siiyo haynaayo ra'yi fiican iyo waxa dhabtaa oo ayaga qaarkood been looga sheegoona aanay ogeyn yaan annagu publicly aan u sheego haynaa shaksi ma aha waxa la haysto inay kala caddaataan rabaa nidaamka maanta ka jira ee dowladnimada ah wax badanaa ka khaldan inuu noo hagaago noo tooso weynaadaanaan rabnaa waa faqiin maxamuud yuusuf hoonkeeda tiifi ka socota haddaad tihiin madaxdii dalka soo maray maxaad intaad waqti isku gelisaan aad madaxda halkan xilka haya ula fadhiisa weyde ciladaasaa jirtee bal sidaas maana si kaleeto ka habboon sameen maxaad dhihi weysa intiina warbaahinta ka soo hadlay wuxuu yidhi reer baa waxaa la yidhi cunug baa dhul waa kala cararay markaasaa iyadoo la eryaa cunugii lala hadlaya laleeyahay war geed qabso intaan kaa daba imaanayna waa moogta ama kusoo gaarayne marka dhurwaagii uu hadlaa la yidhi wuxuu yidhi waaba haddaan geed kula leexda iyo meelo qabsado yaaba waxna dhegaysanayo inaan ra'yi bixino inaan tala bixinaan rabnaa annagu markii fursadna la siiyey inaan ka hadlo ma rabo markii fursadna la siiyey dowladda waxaan siinay talaan siinay xilka intaanan wareejin ka horna talaan siinay markii aan wareejinay kadibna talaan siinay mar kale waxaan rabaa saxaafadda u sheegayaa waa on the record waase adikaa haysaanoo ku noqon kartaan maalintii ra-iisul wasaaraha la magacaabay mowqifkaan aniga aan ka istaagay soomaaliya iyo maqal article la yidhaaho dheer hiiraan online iyo muqdisho muxuu ahay times iyo muqdisho muxuu ahay online iyo jowhar iyo kulli waa ku wada jira waxaan u taagnaay baarlamaankaa guux waxaa ka dhaqmucdaa dowladda in la diido xukuumadda in la diido xukuumadda inaan la diidin wixii aan ka qoray wixii aan ka ero waa la ogaa whatsapp groupaan intaan sameeyey oon xildhibaano badan ku soo darnaan dhexdooda dood ku galnay maadaama aniga dalka aan ka maqnaa markaas dibadda aan jiray dibaddaan jiraa dameer iyo nin fuulo waa daymaa iga deeqdo ee ayagay u taallaa hala raftaana maanan dhihine waxaan ka shaqey xukuumaddoo 105 xildhibaan ay mooshin taqadum oo horumar ay ka keeneen lama keeni karaba baarlamaanka waxbaa ka qaldan ay leeyihiin yaa waxaas aniga aan aaminsanahay qayb inaan ka qaatay sababna aan weyn ka ahay in 200 jajar xildhibaan xukuumadda ay ansixiyaan xukuumadda waa la safnayn maantaan diyaar u nahay bannaanka u taagannahay inaan la safano matalan caleemasaarkii madaxweynaha puntland waa wada tagnay madaxweynuhu waa tegey
wasiirro badan dowlad goboleedyada dhan madaxweyne shariif waa joogay aniga waa joogay madaxweynaha waa la wada joogay guddoonka baarlamaanka oo dhan waa joogay waa la wada hadlay maalintii hadalkan labadeena waa fadhina qaybaan ka ahaynay odayaynaan ka galna meesha annaga wuxuuna sida hadda u yaalaan mugaas 7 bilood ayadoon la isku imaanin oon la wada hadlin oo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe aanay telefoon xataa aanay ku wada hadlin yaa madaxweynihii cusbaaye la doortay Saciid Dani oo wuxuu sababay in la wada fariisto waa la wada fariisto waa la wada hadlay wax badan la kala eed sheegtay markii dib waa la isku yimiday qof walba meesh wuxuu ka qaray dalka hoggaan uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka fadhiyo isaga mas'uulka aniga iyo madaxweyne shariif dadkii yiriya cod dheer ku yiraan kamid asaa mas'uul dalka fursad aan siino madaxweyne Saciid Dani wuxuu yiri gogashaan waa furantahay hadii la sii joogayo lagu wada tashanayo haddii dib loo ballamaayna mar walba waa furantahay in la isku yimaado la wada hadlo wax ka fiican oo muxuu ahaay hala tashado oo hala heshiiyo oo hala israaco haddii maalin kale ballan qabanayo oo yiraahdana muxuu ahaay ballantaas dambe uu qabanayo hala waxay diyaaran u nahay shalana u ahayn maantana u ahayn laakiin dee nasiib darro laba waxyaabood isma raaci karaan aniga inaan maanta baxo oon madaxweynaha aan soo arko lafsadeedu waxa jira daawo uma aha waxa jira waxaa daawo ah ficil la sameeyaa daawo ah ficilkaasaan wada dhowraynaa annaguna haddii waxna lagu tuhmaayo inaan cod ku leenahay waa bixin waxa aan contribution keenaaba hadda inaan sheegno ma waxaad u malaynaysaan haddii aan meel aan dowladda inta ka gaarsiino codkeena ay madaxdu ku dhagaysanaysa haddii jirto inaan media imaan lahayn public imaan lahayn waanadu markay public timaado waana ma aha tan hadda annaga aan sheegaynaa waana ma aha waajibna saarnaay oo si kaloon u gudanna aan wayna dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno waay waana waxay ahayd markaan hoos ugu sheegi karno oon dhigi karno maya madaxweyne saana ka roon maya ra'iisul wasaare saana ka roon maya gudoomiye baarlamaan saana ka roon aan dhigi karno markii saas dhawaaye laakiin waxay taagan tahay Allahumma inni ballaq dadka Soomaaliyeed inaan u sheegnaan rabnaa wuxuu waa qaldan yihiin wadaday ku sax lahaayna ma taagna wadaday ku saxda in la soo istaajiyaan rabnaa